magaalada Diridabo ka tirsan dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa la sheegay inay rabshado ka bilaabmeen lamida kuwii shalay ka dhacay magaalada Jigjiga xaafadda loogu magacaabo Ashawa ayaa la sheegay in rabshaduhu ay ka bilaabeen waxaana ridaha loo laabay dhamaanba suuqyada iyo meheradaha ku yaalay suuqaasi lagu magacaabo Ashawa rabshadahan oo u dhaxeeya dhalinyaro Soomaaliya iyo qaar ka soo jeeda qoomiyadaha kale ee Itoobiya ayaa la sheegay inay ku fideen meelo kale oo ay ka mid tahay xaafadda la yiraahdo xaafadda Ciise xaalada fowdo iyo jahwareer ayaa laga sheegay inay magaalada Diridabo ay ka jirto ayadoo hadba dhinaca ay isku eedeeyaan kooxahaasi kala duwan ee ka soo jeeda qoomiyadaha ku nool dalkaasi Itoobiya dhalinyarada rabshadaha wada ayaa ku hubaysan budad gaagaaban iyo faasas iyo midiyo dhaadheer dad goobjoogayaal ayaa idaacadda BBC u sheegay in booliska ka tirsan federaalka Itoobiya ay magaalada soo galeen si ay u kala dhex galaan oo ay ku kala eriyaan dadka rabshadahaasi wada gaadiidka caadiga ah ee magaalada iyo kan dadweynaha ayaa gabi ahaanba istaagay inkastoo uu khasaaray jiro misna lama sheegin tirada dhabta ah ee khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca dhanka kale magaalada Jigjigo oo maalintii shalay ay ka dhaceen rabshado kuwan la mid ah oo galaaftay dhimashada dad lagu qiyaasay ilaa 10 qof isla markaana lagu burburiyay meherado waaweyn oo ku yaalay suuqyada oo ay lahaayeen dad ka soo jeeda qoomiyadaha Oromada iyo Xabashida ayaa maanta degan iyadoo ay wararka qaar sheegayaan in magaalada lagu dhaxarkay madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar madaxweynaha dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo ku labisan direyska ciidamada isla markaana ay gaaf ciidamo ka tirsan ciidamada loo yaqaan liyu boolisku waxaana goobjooga ku sugan magaalada Jigjiga uu noo sheegay in lagu xaqday gidaarada iyo suuqyada waaweyn ee magaalada Jigjiga oo dhaahiyo kala duwan oo oranaya waxaanu taageersanahay Cabdi Maxamuud Cumar iyo waxaanu ka mid nahay dalweynaha Soomaaliya kaasoo laga soo horjeedo dawladda federaalka ee Itoobiya ma cadda halka ay saldhigi doonto dhibaatadan magaalintii shalay ka bilaabatay dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya walow ay ilaa hadda xaaladda dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ka soo reynayso